wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. xalay waxa uu kulan la qaatay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir. wararka kalsan ay ka helayso Dhuusamareeb ayaa sheegaya in saacado badan uu qaatay fadhiga wasiir Sabriye iyo madaxa xukuumadda Galmudug. warbaahinta looma soo bandhigin qodobo rasmi ah oo isla meel dhigeen, waxaana maanta sii soconaya fadhiyada wasiirka arrimaha gudaha uu la yeelanayo madaxa xukuumadda Galmudug iyo hoggaanka Ahlus Sunna ee midoobay maamulkaasi. wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa ku adkeysanaya in la qabto doorashada Galmudug bisha soo socota ee July, balse waxa diidan madaxweyne Xaaf oo sheegay in waqtiga xileedkiisa uu ka bilowday kolkii ay heshiiska ku midoobeen Galmudug iyo Ahlus Sunna. xubnaha la socda wasiir Sabriye oo ay ku jiraan xildhibaano ka soo jeeda deegaanada Galmudug waxaa kamid ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Weeliye. Dhuusamareeb waxaa ka sii socon doona kulamada ilaa inta meel looga soo harayo waqtiga doorashada la qabanayo ee laba dhinac kala taagan yihiin dowladda federaalka iyo garabka kamid ah Galmudug.